sharcigani waa sharci cusub sharci la nooca hadda ka hor dalka lagama ansixinin bayaankani waxyaabaha uu ka hadlahayo waxa la dhahaa dambiyada dhaqaalaha ama economic crimes ba afka qalaad lagu dhahaa marka bayaanka magaciisa waxa la dhahaa bayaanka soo celinta hantida aan la garanaynin meesha ay ka timaado bayaankani wuxuu ujeedadiisa ugu weyn ay tahay in lala dagaalamo ama laga hortago dambiyada dhaqaalaha amaba wax lunsiga hantida dawladda taasoo kale bayaankan wuxuu sahlayaa ruux kasta oo haysta oo inkamkiisa diiwaan gelin laakiin hanti badan haysta hantida faraha badan hadii uu keeni waayo cadeynta hantidan meeshu ka helay ah in hantida ay dawladdu la wareegayso hadaan guda galo sharcigani waa sharci cusub sharci la nooca hadda ka hor dalka lagama ansixinin wadamada xataa sharcigan leh way yar yihiin adduunka sidaynu ogsoonahay waxaynu leenahay bayaanka la dhaho bayaan 881 isbaar 2007 oo ah bayaanka lagula dagaalamo ka hortagga musuqmaasuqa sidoo kale waxaa jira xeerka ciqaabta ee dalka xeer number ama bayaan number 404 isbaar 2004 marka dhammaan yaanihi bayaankani waxyaabaha uu ka hadlahayo waxa la dhahaa dambiyada dhaqaalaha ama economic crimes ba afka qalaad lagu dhahaa marka bayaanka magaciisa waxa la dhahaa bayaanka soo celinta hantida aan la garanaynin meesha ay ka timaado amaba afka qalaad waxa lagu dhahaa asset recovery proclamation ama af Amhariga waxa lagu dhahaa yanibrat masmalas awaj marka si guud bayaankani waxa weeye bayaan number 1364 isbaar 2025 ama 2017 marka waa bayaan hadda soo baxay sababta bayaankan aan bulshada u wacyi gelinayno iyo saameyntiisa waxa weeye saameynta uu yeelanayo bayaankani seen soo sheegnay wuxuu ujeedadiisa ugu weyn ay tahay in lala dagaalamo ama laga hortago dambiyada dhaqaalaha amaba wax lunsiga hantida dawladda laakiin bayaanka marka la leeyahay asset recovery unexplained asset buleeyahay yani hantida aan la sharixi karin meesha ay ka timaado marka bayaankani bayaanadu inta badan marka la soo saaro dalkan waa dawlad federaal ah waxay leenahay regional states iyo federal government deegaanadu waxay leeyihiin shuruuc gaar ah dawladda federaalkuna waxay leedahay shuruuc gaar ah marka shuruucdii baa xagga applicationka ama dhaqangalkooda yaa kala duwan bayaankani wuxuu sababta aynu uga hadlayno waxa weeye wuxuu dhaqangal ku yahay dhammaan dalka ilaa heer tuulo يعني بيانada inta badan qodobka saddexaad waxay dhahaan bayaankani wuxuu dhaqangal ku yahay dawladda federaalka iyo sidoo kale ismaamulka Dirdhabo iyo Addis Ababa laakiin qodobka saddexaad ee bayaankani wuxuu leeyahay bayaankani wuxuu dhaqangal ku yahay dhammaan dalka Ethiopia not only dalka Ethiopia hatta wuxuu dhaqangal ku yahay muwaadiniinta Ethiopiaanka ee dalka leh hanti oo la carab ujeedada uu xambaarsan yahay bayaankan ee lagu goleeyahay iyo khataraha la rabo in lagu dhimo si kooban u dhigtay hadaynu si guud u dulgallo ujeedada bayaankan sida ku cad qodobka shanaad ee bayaankan oo ka hadlaya ujeedada bayaanka sida ku cad qodobka shanaad oo ka hadlaya ujeedada bayaankan iyo sababaha loogu baahday sidoo kale qodobka saddexaad qodobka afraad oo isna iyaguna ka hadlaya cidda uu dhaqangalka ku yahay ujeedada ugu weyn ee bayaankani waxa weeye in laga hortago dambiyada dhaqaalaha
ama economic crimes sidoo kale waxa uu ujeedooyinka bayaankan kamid ah inuu xaqiijiyo in la soo celiyay dhammaan wixii hanti dawlad si khaldan loo lunsaday sidoo kale bayaankani waxa uu ujeedooyinkiisa kamid ah inuu xaqiijinayo dhaqaalaha iyo koriinka dhaqaale ee dalka sababtoo ah waxa la xaqiiqsan yahay in siyaabo kala duwan hanti ay u abuurtaan markaan leenahay siyaabo kala duwan hantida dadku abuuranayo dadka qaar baa yaani waxay sameynayaan inaysan diiwaan gelinin hantidooda isla markaana ay la baxsadaan canshuurtii waajibka ku ahayd taasoo kale bayaankan wuxuu sahlayaa ruux kasta oo haysta oo inkamkiisa diiwaan gelin laakiin hanti badan haysta hantida faraha badan hadii uu keeni waayo cadeynta hantidan meeshu ka helay ah in hantida ay dawladdu la wareegayso marka ujeedada ugu weyn waxa weeye in laga hortago dambiyada dhaqaalaha ama economic crimes sidoo kale hantidii dawladda siyaabo kala duwan oo luntay cidii ay u gacan gashay in dib looga soo celiyo oo dawladdu chance u hesho inay hantideedii dib u soo ceshato weeye bayaankani waa bayaan dalka ka abuuray saameyn weyn oo dhaqangalkiisa leh hatta bayaankani waynu u iman doonaa wuxuu sheegayaa 10 sano ka hor back inta badan shuruucda waxay dhaqanqal noqdaan maalinka la ansixiyo laakiin bayaankani sida ku cad qodobka 8aad ee bayaankani waa bayaanka kaliya ee back sameynaya oo sharciyo qanada qaar waxay leeyihiin meesan arintaasi dastuurka ka hor imanaynin sidee yaani sharcigu uu dib ugu noqon karaa 10 sano ka hor that was the questions that was raised during xilligii baarlamaanku uu ansixinay bayaankan su'aalihii la soo bandhigay baa وهاك هانتين نوعه ayaa la soo celinaya ama uu bayaankani qeexaya in la soo celiyo waa hantiin nooca sida ku cad qodobka shanaad ee bayaankan hantida la soo celinayo horta bayaanka laftirkiisa waxa magaciisa ah asset recovery proclamation balla bayaanka soo celinta hantida hatta hantida la soo celinayo waa hanti noocade ah hantida la soo celinayo waa dhammaan nooc kasta oo ay hanti ka kooban tahay oo hantidaasi يعني هنتي سيدي وحلو قيبيا لبا waxa la dhahaa movable property iyo immovable property marka movable property waxa weeye hantida guurtada iyo hantida guurtada marka hantida guurtada waa sida lacagta ee gawaarida iyo wixii kale ee dhaqaaqahay oo dhan hantida guurtada ana waa dhulka iyo guryaha iyo wixii la midka ah oo kale marka bayaankani wuxuu yiri hanti kasta oo qofka haysta uusan cadeyn karin sidoo ku helay ama ba hantidaasi ruuxaas dawladda ka dhaco ama ba si privately ah u haysto hadii qofku uu ku guuleysan waayo in hantida uu gacanta ku haysto uu sheegi waayo meesha ay ka timid ama ba uu cadeyn waayo hantidaas sida uu ku helay dawladdu iyadoo oo raacaysa qodobada bayaankani waxay xaq u leedahay in hantida ay la wareegto marka hantida bayaankani uu leeyahay waa la noqonayaa ama dib baa loo soo celinaya waxa weeye unexplained asset hanti kasto oo lagu guuldareysto in meeshii laga keenay la cadeeyo taasoo noqon karta hantida guurtada ah iyo sidoo kale hantida guurtada labadaba way noqonaysaa marka dhammaan noocyada ay ka kooban tahay hantidu bayaanku waa mid applicable ku isla markaana soo celinay وهاجاج أخياري هل كاد ولي نقل السعوتاني وبرنامجكني شرعي يبولشدا أو عن تطبيقات كان كجه الله إنه بيان كسب حي جمهورية الديمقراطية فدرال كإثيوبيا قالها وكيلة الشعب كأس أو سعلنت هنتيدا عن لجرن إن هالكي كتمد شرعي قان سراء محمد أحمد يا فلانقين شرعي كوسمين يا موضوع عن محمد
faa'iidada ku jirta bayaankan soo celinta hantida la garanayna halkay ka timid maxay tahay bulshada deegaanka ama dawladda bay ugu jirtaa ujeedooyinka bayaanka waxaa ka mid ah inuu xaqiijiyo in kobaca dhaqaale ee dalku uu kor u kaco isla markaana la helo isku filaansho dhaqaale iyada oo ay yani ujeedada iyo faa'iidada ay tahay yani bayaankani wuxuu awood u siinayaa dawladdu in hanti aad u culus oo yani dawladda ka maqan inay dawladdu dib u soo ceshato wuxuu awood u siinayaa bayaankani in xataa hantida wadanka ka baxda in la freeze garay salahan waxa ku jirta erayada uu bayaankani isticmaalayo waxa kamid ah seizure freezing iyo confiscation seizure and freezing waxay ka macno yihiin in yani hantida iga aad bangi wadan caalama dhigatay hadii aad ku guul dareysato hadii loo ogaado hantida inay ku taalo bangiga shaqaalihiisu wuxuu ka mid noqon karaa dadka adiga ku fashilinaya whistleblowers balada whistleblowers waxa weeye makhraatiga qarsoon ama dadka xogta keena identity-gooda la qariyo ya whistleblowers la dhaha marka cid kasta oo hanti ka shakida in hantidaasi ay ku lug leedahay nooc dambi oo amaba ay xaqiijin karto in hantida lagu helay si sharciga baalmarsan ama ficil sharciga baalmarsan waxa awood ay dawladdu u yeelashahay in hantida haday xataa taalo bangiyo caalami in la freeze gareeyo wadanka gudihiisa haday taalo inay la wareegto laakiin dadka waxa iska khaldan dawladdu sidee bay hantida oo la wareegaysaa su'aasha hantida waxa lagu la wareegayaa baaritaan baa la sameyn ka bacdi xeer laaliya wuxuu ka codsanayaa maxkamadda in hantidaas oo yaani meeshay ka timid aanan garanaynin in dawladdu ay no freeze garayso amaba aan la wareegno dan maxkamaddu waxay sameynaysaa dhinacii kale ee hantida lahaa waraaq baa loo qorayaa sida ku cad qodobada bayaanka waraaqda markii yeeritaanka la gaarsiiyo waxaa fursad loo siinayaa inuu cadeeyo sourciga ama meesha uu hantidan ka keenay hadduu dhaqaale xataa ganacsi ka keenay cadeymihii legal evidences hadduu ku guul dareysto inuu cadeymo keeni waayo dawladdu waxay xaq u leedahay in hantida ay la wareegto marka faa'iidada bayaankani waxa weeye faa'iido aad u ballaaran wuxuu ka hortagayaa wuxuu la dirirayaa musuqmaasuqa oo yani maadaama oo bayaankani uu awood u siinayo hanti kasta oo la musuqo in dib loo soo celiyo kaliya uma ogolaanayo hantida magacaaga ku qoran hantida magaca qaraabadaada ku qoran hadii lagu guul dareysto in meeshii laga keenay la sheegi waayo dawladdu waxay awood u leedahay inay la wareegto marka cid salahan hadii nin masuula uu hanti badan tabcay ama dawladda ha ka tabco ama qaab kale oo sharci ah ku tabco hadii uu ku guul dareysto in uu sheegi waayo hantida qaabkii uu ku helay ama qaabkii uu ku tabcaday xataa hadduu hantida dibadda dhigtay hadduu magacyada qaraabadiisa ku qortay dhammaan wuxuu awood u siinayaa bayaankani in dawladdu ay hantida dib oo la wareegto kaaga daranay yani arinta cajiibka ee bayaankani sheegaya waxa weeye 10 sano ka hor 10 years back sida ku cad qodobka sideedaad oo ka hadlaya timeka iyo thresholdiga uu shaqeynayo bayaankani wuxuu dhaqangal noqonayaa 10 sano ka hor hantidii wuxuu dhaqangal ku yahay 10 sano ka hor hantidii si sharci darra ama ficil sharci darra lagu helay isla markaana la cadeyn waayay meeshii laga helay ama sidii lagu helay wuxuu kala dhaqangal ku yahay maalinta la ansixiyay bayaankani hantidii si sharci darra lagu helay marka waad dareemi kartaa dalkeena musuqmaasuq baa ka dhacay aad ballaaran marka musuqmaasuqyada dhacay 10 sano ka hor
bayaankani wuxuu awood u leeyahay in dhammaan hantida noocadaas ay dawladdu la wareegto akoonkeeda kula wareegto qaabka ay ula wareegayso iyo nidaamka la marinayo dhammaan si cad bayaanku u qeexaya wuxuu leeyahay baarayaal baa hantida markii laga shakiyo yaa la gelin baarayaashaas baari xeer ilaalinta dambiga soo oogi maxkamadda xukumi marka kaliya waxay dawladdu la wareegi marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo in hantidan lagu helay qaab sharci darra amaba illegal act fariintaada u soo jeedin lahayd bulshada iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee ay khusayso ku saabsan hantida fariinta bulshada deegaanka aan u soo jeedinayno waxa weeye bayaankani waa bayaan la ansixiyay oo sharci ah waxa la dhahaa bayaan isbaaro bayaan number 1364 isbaaro 2025 ama 2017 bayaankani wuxuu dhaqangal ku yahay dhammaan dalkeena Ethiopia hadaba iyadoo oo bayaankan laga duulayo cid kasta oo hantiila amaba cid kasta oo shaqaale dawladda oo hanti leh waxaanu uga digaynaa in ay eegadanba cadeymaha loogu talagalay hantida ee qaabku ku helay inuu ruuxaas haysto sababtoo ah sida ku cad bayaankan hanti kasta oo lagu guul dareysto oo laga shakiyo in si sharci darra lagu helay isla markaana qofka hantida leh uu ku guul dareysto inuu cadeyn waayo sida uu hantidan ku helay bayaanku wuxuu sheegayaa in hantidaas ay dawladdu la wareegi marka inta la wareegin hantida qof kasta oo hantila ama qof kasta oo hanti haysta laakiin aan cadeynteeda haysanin waxaan u sheegaynaa in iyaga oo ka faa'iideysanaya waqtiga in ay cadeyntooda hadaba diyaarsadaan sababtoo ah marka hantida intii laga shakiyo faldambiyeedka noocan lagu soo oogo kaliya waxa badbaadinaya waxa weeye cadeymaha la xiriira cadeymaha sharciga ee hantida la xiriira midda kale cadeyn kasta oo sharci darra oo ruuxu uu keeno tusaale cadeyn kasta oo sharci darra oo ruuxu uu damco inuu isku difaaco iyadana ciqaab bay u sii taraysaa cadeyntaasina waxay noqonaysaa mid waxba kama jiraan marka cadeynta qofka laga rabo waxa weeye cadeyn sharci ah oo sheegaysa hantida sida uu ku helay ama ganacsi ha noqoto ama si kale ha noqoto marka leenahay cadeyn waxay noqon kartaa maqraatiyo waxay noqon kartaa cadeyn document oo qoraal labada uma sharciga hortiisa cadeyn loo yaqaan marka bulshada waxaan u baaqaynaa in bayaankan saameyntiisu ay culus tahay cidii marka Soomaaliyeenu maadaama dad iska oral society ah tahay in hantida ay haystaan si aan berita ka maalin loola wareegin in sharciyadii lahaanshaha hantida ay diyaarsadaan ama qaabka ay hantida ku heleen toddobaadkan oo barnaamijkeennii sharciga iyo bulshada aan kaga hadlaynay mowduuc ku saabsan bayaanka cusub ee dhawaan golaha wakiilada shacabka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalka Itoobiya soo saareen ee ku saabsanaa soo celinta hantida aan la garanayn halka laga keenay sharci yaqaan sare Maxamed Axmed oo ka tirsan sharci yaqaanada xafiiska cadaaladda deegaanka Soomaalida ayaa martii noogu barnaamijkan oo falanqeyn sharci ku sameeyay soo jeedintii Maxamed Cabdi Cali dhanka kaamirada si wada jir Maxamed Cali Said Rabta Cabdullaahi Shaafici habeyntii nucaankaas isku dubaridkii Axboon Yaasiin dhamaantay isku duubni taniya mowduuca xigeyntan hawada ku kulmayno akhyaari amaana Allah aad baa u mahadsantahay Maxamed شرفي ومثل ما